Got so much to them and I sky low. When I go to guess the them and I sky low. Now I get the them and I sky low. Call up the shit go them I want go. We got so much to them and I sky low. When I go to guess the them and I sky low. fanaanka caanka ah Ilka Casaqays ayaa soo karbashay fanaanka Qamar Suugaani waxaana uu heliyay xaaskiisii hore ee Ugbaad Aragsan heestan uu soo qaaday ayaa midhaheeda laga dhasan karaa in hiil iyo hoob uu la garab taagan yahay fanaanadii hore ee Ugbaad Aragsan laguna tilmaamay in ay ahayd boqoradii hore ee fanaanka caanka ah ee Qamar Suugaani iyo Ugbaad Aragsan ayaa xaaladooda in badan xumayd waxaana baraha bulshada ay isku soo marinayeen weerar celis dhanka familka iyo jacaylka taas oo laga dareemiyay sanadadii iyo maalmihii ugu dambeeyay ee noloshooda waxaana u muuqatay in gabiyahanba fanaanadu ay hadda ka maquurato maadaama fanaanada ilaa hadda aan laga warhayn goorta xilliga arooskeeda iyo goorta ay aroosayaan wiilka cusub ee muusiqiistaha reer Djibouti ay guursatay taas oo hadda ay joogto dalka Djibouti gabiyahanna iskaga carartay caasimadda Somaliland oo ay uga tagtay Qamar Suugaani oo markii hore ay aad isku jeclaayeen jacaylka oo noqday mid gabiyahan buu ka xumaaday laakiinse Ilka Casaqays ayaa gabiyahanba hees gantaal ku ah Qamar Suugaani ku soo riday sidoo kalena Ugbaad Aragsan وجيلي وحلا شجعي إن أقبل رأسا يلك عسقاس إنتاني سكورسن قمر سوغاني كهر أي أصحاب أهاين سدوا كلنا فنك أي كود جيران ما دام فنانتو أي جبيهان بهوست صاحب كيهين أي حد أون وحلايا لكون نقطي سببت وفنان كحلجان وقصوا هالله يجبيهان بهست وحلجان وسوق قاضي أو كوكر باشي قمر سوغاني أو حالة دود مانتو أي كلا فريستي laakiinse lama oga ilaa hadda waxa sababta ugu weyn ee uu Ilka Casaqays ku soo karbashay Qamar Suugaani laakiinse waxyaabaha aadka loogu badinaya ayaa ah in Ugbaad Aragsan ay gabiyahanba hadda ay tahay marwada kaliya ee cilada fadhida ee hadda ilaa hadda aan guurkeeda la shaacin ama gabiyahanba arooskeeda waxaana muuqatay maalmihii ugu dambeysay in aroos wali ah loo dhigay fanaanka caanka ay Qamar Suugaani iyo gabadhiisa cusub oo halkaasi oo gabiyahanba aroos aad u qurux badan sidoo kalena aad loo soo agaasimay uu qabsaday fanaanka waxaana muuqatay in gabiyahanba ay sidoo kale waran ku ahayd fanaanada caanka ah ee Ugbaad Aragsan taas oo markii hore ay jeclaayeen haddana gabiyahanba aroos aan inaba caadi ahayn iyo jacayl cusub uu Qamar Suugaani yagleelay taas oo gabiyahanba ay ka seexan weeday fanaanada caanka ah Ugbaad Aragsan xaaladooduna ay gaadhay mid gabiyahanba baraha bulshada aad looga dheehanayay weerarka iyo weerarciska ay isku hayaan muuqaalada iyo sawirada ay soo kala duubayaan waxaana ku wareeray dadka kala taageera Ugbaad Aragsan iyo Qamar Suugaani kuwaas oo gabiyahanba taageerayaal weyn u ahaa sidoo kalena shacbiyadoodana laga dheehanayay waxaana jirtay in gabiyahanba ay la kala safteen Ugbaad Aragsan iyo Qamar Suugaani oo weerarkaasi dhanka social media ay isku hayeen waxaana jirtay in gabiyahanba hadda uu guurkii Qamar Suugaani guuleystay taas oo hadda haysto lamaanihii qarniga sidoo kalena aroos qurux badan iyo meher wareer ahna loo dhigay halka fanaanada caanka ah Ugbaad Aragsan ilaa hadda aan la arag arooskeeda laakiinse la rajeynayo in dhawaan ay aroos qabsato kala kacsan taas oo aan la garaneyn goorta ay guursan doonto ama arooskeeda uu dhici doono Ilka Casaqays oo ay asxaab yihiin Ugbaad Aragsan ayaa hadda ka soo dhex muuqday baraha bulshada sidoo kalena weer dhanka heesaha ku soo qaaday fanaanka caanka ah ee Qamar Suugaani waxaana dhawaan la filayaa in fanaanka caanka ah Qamar Suugaani uu jawaab kulul ka soo bixiyo heestan uu soo qaaday Ilka Casaqays taas oo noqon doonto weerar iyo weerarciisa ka dhana waxaana bilaami doonta dagaal ka dhana Ilka Casaqays iyo Qamar Suugaani taas oo hadda la wado waxaana ay u muuqataa in xaaladdu haddii ay halkaasi gaadho ay faraha ka sii baxdo maadaama labadan fanaan ay yihiin fanaaniin shacbiyada fara badan ku leh bulshada dhexdeeda sidoo kalena aad loo taageero waxaana sababi kartaa in labadan fanaan ay isku farxashaan oo heeso kala duwan ay isku soo karbashaan maalmo ka dambaysa